dalkan afartii sano waa mar inuu doorasho galo doorasho dadka intooda badan haddaanay kulligood isla ogolayn intooda badan isla ogol yihiin stakeholderska waddanka badankooda dhan ama kulligooda ay qayb ka yihiin doorashaha ayaa ka dhici jirta waddankan noocay rabtaba ahaato waana waxana siiyey legitimacy dalka inay doorasho ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale hadalka ra'iisul wasaaruhu isagoo kooban buu soo galay hawada waana loo baahan lahaa isagu inuu idaacadaha soo fariisto oo wariyaasha ay hor fariistaan oo su'aalaha la qabo dhan uu ka jawaabo laakiin guud ahaan hadal macquul ah buu eegyahay wanaagsan dowlad ahaanna hadduu yiri waqtiga iyaga u badan baan gelin doonaa in doorasho waqtigeeda ay dhacdo oo xalaalo oo aan dhibaato keenin oo aan dalkan qalaas u horseedin ayagana waxay qabteen iyo laga soo wadiyo aan sii carqaladayn runtii waa war wanaagsan oo in la soo dhaweeyo u baahan laakiin faahfaahinno badan iyo su'aalo badan haddii la heli lahaa waa lasii weydiin lahaa marka aynu eegno dhowrka bilood ee u hadhay iyo hadalkan imika yimi in maanta laga bilaabo loo diyaargaroobo sidii doorasho xilligeeda ku dhacda loo qaban lahaa bal dhankaaga adiga maxaa ka suura geli kara bay kula tahay horta doorashada waa lagu khasban yahay in la qabto oo waqtiga madaxweynuhu dhammaado February la gaaro 8deeda qolada baarlamaankana ilaa October November December la gaaro mandate-ka ay haysteen baa dhamaanaya iyo waqtiga ciidanka haysteen dalka inay ka taliyaan oo maamulaan haddii waqtiga la gaaro marka ma talin karaan oo sharciyad ma haystaan ilaa 2000 waxaa dalkan lagu soo waday qolo kasta markii waqtigu u dhamaato doorasho tii hore ka fiican inay sameeyaan iyaga waxaa laga sugayay dowladdan hal qof iyo hal cod anuu daraasad aan soo saarnay bishii hore aan ku cadeynay inaan hal qof iyo hal cod wixii loo baahnaay oo sababi lahaa aysan suuragal ahayn marka waxaan ku talinay in la isku yimaado oo dadka talada siyaasadda ku leh ama xisbiyada tartamaya ha noqdaan oo maaragtay inay tartamaan la rabo ama ha noqdaan maamul goboleedyada deegaanadooda iyo dadka ay hayaan laga tartami doono ama ha noqoto baarlamaanka sharciyadii gacanta ku haya ama ha noqoto xukuumadda dhaqaale ama looga baahan yahay ama adduunkii wax weydiin karta aad baan ugu talinay in la isku yimaado haddana iyadoo bilo u hartay 10 bilood 9 bilood ay u hartay in hadda aan weli xataa la isla hadlahayn oo maalin xataa sidii markii madaxda qaarkood hadlaan loo kala eed sheeganaya ay jirtay aad baa loo daahsan yahay laakiin tallaabadan waa tallaabo macquul ah oo hadda ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay waana inaysan sidii galmudug oo kale hadda waqtiguna aad u jiitamin xal la gaaro marka laga tago hadalka ra'iisul wasaaraha hadal ahaanshihiisa in ficil loo bedelaa intee ku qaadan kartaa tallaabada ugu horreeya waa in la kulmo oo ilaa security councilka laga soo canaaninayo dowladda Soomaaliyeed oo la dhahayo kulmiya dadka talada idinla leh oo doorashada idinla leh oo tartanka dambe idin kala qayb qaadan kara oo talada qaybta ku leh marka in hadda intii la isbuuco la dhaho aan meel isugu nimaadno dhusmareeb isugu nimaadno ama garow isugu nimaadno ama baydhabo isugu nimaadno hawl adag ma ahan marka waa inay isku yimaadaan si dadka talada sii hayn doona 4 sano kadib sharciyadii ay talada ku hayn lahaayeen loogu sahlo doorasho dalkan uga dhacdo doorashadii la yaqaanay weyneed haddii dhici weydana midda anagu aan sheegnay waxay leedahay maaragtay ugu yaraan heer gobol maaragtay ilaa 40 kun oo qof codeyso marka ama kuwa kale keeni karaan hadaa nooca khasab maahan laakiin waa dadkuna inay codeeyaan xisbiya lagu codeeyo xalaalna ay noqoto oo aan qolada hadda talada gacanta ku haysto awoodaha ay haysato ay u isticmaalaan inay iyagoo ay isku sallaxaan itusoo taafsiina ay dhacdo macnaha waxa shaqo loo baahan yahay in la taxo sida loo kala qaadanayana la taxo siyaasiyiinta kulmaysana ama kuwa dowladda hadda ha ahaadaan kuwa gobolada waa daruuri inaysan macnaha noo kala gooya iyo maaragtay aysan arrintu noqon shacabka xataa wax sax oo xalaal ah oo xor ah oo shacabku ay codka la baxayaan in laga dhigo marka waana waajib dastuuri ah haddii la dayacana waxaa meesha ka baxaya mandate-ka iyo idanka iyo ogolaanshaha hadda wax lagu talinayo haddii taas ay waqtigu ka dhamaadana dee dowladnimadii waa dhaawac gaaraya marka waa daruuri marka aynu eegno guuxii muddo kororsiga jiray uu isaguna sheegay imika in doorashadii ay tahay in xilligeeda lagu qabto marka laga tago doorasho xilli ku qabashada aragti kale hadalkiisa ma ka dhex muuqataa ra'iisul wasaaruhu 3 qodob buu yiri wuxuu yiri stakeholderska waa la hadlaynaa wuxuu yiri in doorasho dhacdaa muhiim ah oo hadda mid gooniya carabka kuma adkeena doorasho inay dhacdo in baa loo baahan yahay la isla ogol yahay wuxuu kaloo yiri waqtigeeda inay ku dhacdo marka 3 qodob waa 3 qodob oo duuduuban dowladana waxaa ku habboonba inay horta miidiyaha soo hor fadhiistaan oo press conference ay qabtaan iyo hadda inay video soo duubaan xafiiskooda ka soo baxday waxaa ka qurux badan inay soo fadhiistaan 20 journalist hor yimaadaan su'aalaha loo qabo dhan la weydiiyo kuwa gobolada ka socda joogaan kuwa xamar ka socda ay joogaan kuwa qurbaha ka socda ay joogaan hay'adaha caalamiga adinkoo kale ka socdaan ay joogaan laakiin dowlad social media soo dhigaysa iyada si fikradeeda kaliya su'aalaha kale dadka ku bargo ahayaan waa runtii waa arrin loo baahan yahay in xal loo helo oo nimankan ay madaxda ay aqbalaan inay press conference qabtaan wariyaashuna su'aalahooda si rabaan u weydiisan karaan